السلام عليكم أصحاب ملك السعودية دنيا كتشوكتان كسر دوام برتع يوتيوب وكلنا قبل نصدح كسر دوام واد ما سنتي ولا الصلوة عاد بنقول دوام يوتيوب كيجي وقنال كيجي هذا واجه يحكوا الدنيا صفية تصمم عادية أبوانات فنانة صومالية ومدين كي قدام بالسوشيال ميديا هايستي كمان حصل له قرصني مير كيلنا ونقضي بقول يا لبعتين جيلة صح والصعنة يا والله وين يميا ما برنك هين ما فهمتي حاد كلا أنا استحد أنا هو عم كافسنا هاي ودي أبنت يميا horta sulaba safiito smooye siigeeda mar walba aan balyeynayna waxaan leenahay isku waara waxaan filayaa bil ka hor inuu meherkoodu dhacay maalintii lagu dhawaaqay lahaa fanaanada safiito smooye waxa lagu meheriyay boylatin geela dadka brankiga haystaan kamid ahaa waxaan lahaa waqti xaadirkan Soomaalidu geel way leeyihiin geel fara badan bay leeyihiin qabiil walbana geel waa leeyahay waxay wixii ugu badnaa hablaha lagu kala doonan jiray laakiin xilligan oo moodo in dadku ay geelaba uga xiisa badan yihiin lacagta oo ina taxtaa haduu ninku nin geel leeyahay ilaa waxaan qaado suuqa geeyo dollar igu soo bedel aniga aad isma lahayn sidaas bay u suurta galaysaa laakiin way hirgashay wax brankiina messengerana waynu wada aragnay دقيقة لويني صفي كنت أنتنا BBC دان كده جيستي وأنا كي فيديو كنا وداون سوا أنا أصلها مي أيامي هوري مقرن صدق قبلها والله وحسن كوجور سنة كدينا وحي أمينة يقف إن كانوا بحيين كله عندنا ما دوا قشة لكن سي بقول إلا بعدين جيلا أو ميل هو اللي بحه وقبلنا قاعدين كيجور سنة صح حتى المقال markii arooskooda macnaha meherkooda oo dhamaaday bil kadib aan filaya ba waxa ay sameysay muuqaal maanta la soo geliyay in boolaatinkiisa ay sida gacanteeda laga saaray horta safiyo waa hantiile mar haday maanta boolaatinkiisa xiradeeda ku jiraan mid kale ku bogaadin hanti bay leedahay waxay tii boolaatinkiisa 20 kamid ah ilaahay dartii aan u bixinay ما شاء الله ولا يد بيو ناكسن تهاي وحيدي هدي wax ka bixisay ilaahay waa ku barakeynaya mar walba waxaad bixiso ka badan baa ku soo galaya ma garanaysa marka wax wanaagsan bay sameysay hablo dhow waxa leeyahay raga geel ka qaata qayb sadaqa oo la baxa qayb iska haysta qayb waxaas waxa jira gada hada waxa sabiitimo waana Soomaaliyeed bay ku qaadanna maadaama ay ahayd gabadh culus oo maadaama bulshada markaas kaga jirta waxaan leenahay maadaama gabadhan waa isku wada mid laakiin se boqolaatin geela oo qalantaa qiimaha suuqa sixirka kicin baa leeyahay safarinta u diraya sixirka gabadhan uu kicin sulbo tusmana way u qalantaa inaan walba Soomaaliyeed laakiin se suuqiga joogto u qalantaa ma garanaysaa maanta wax maray boqolaatin geela ninka maanta boqolaatin geela ninkaan lahaynin eeg marka horeba ninkan isagu hanti aan isku hubinayn yaanu fagaaraha bay iskeenin deesolo kolka horeba gurigiisa isku joogo weedii abiya iskala noolaado haday iminka waqtigan la joogo geel bidana iska baxso gabdhii hore demokrasi lacag u balaqata gabdhii hore hubqaad kala haay dagaalka demokrasi xilliga dagaalka dhinaca adag walaha ku joogo dagaal bi galaya way galaya haday timaado maba iman bay ha timaado way galaya iyaga ka xariifsan solo iyaga ka xariifsan isbedel baa dhacay rag iyo dumar baa gabdhii hore iyo gabdhaha hadda isku mid ma runta fiican صح ma fahanti xagga adkaysigana gabdhii hore u deynina صح ma fahanti marka gabdhahan hadda jooga kulay gabdho waa isku mid weey marka istaba qiimahooda dib marar ilaahay baa quraan ku sheegay qiimeeyay laakiin soo waxaan leeyahay boqol laatin ka geela suuq sixirka oo mariya safiito soo ku qaadan adiga laakiin sanaga daa habla kale ma horta soo ka soo hadal halki ka bixiyay maya waxa yar raalgeli ka bixinin anaaba hadda kula taagan baba gabdhaha ku dhiirigelinayo nin aan hanti haysan oo aan idin kafeyn karin hantidaasi yaani dollar iyo geel buu noqon kartaa khasama inaad ninka geel ka qaadato ma garanaysaa waxa aad xataa haysto intii baad ku dhufanaysaa wax leedan taa baan u baahanay ma garatay waxa la gabdhaha nin aan hanti la ahayn oo aan mas'uuliyadiina ka soo bixi karin assalaamu calaykum taawada si gaar ah waxaan kala hadlayaa gabadha suuq la ma garanaysa halka hadda diga daawanayso waxaan ku leeyahay waa beenteedii waxaan ku leeyahay hoos baan kula hadlayaa waxaan ku leeyahay hadii ninkaasi aan 120 halaad aan xirada ka soo kaxay nafarta ka saarin barta wax tafta ka ruuy way ardaynaysa basta boqolaatin imika maartay noloshu kaliya ma ahayn la eego geel ninkan maleeyahay hanti maleeyahay
waxyaalo badan baa jira nolosha hadda laakiin anigu waxaa jirta nacas badan oo geel badan haysta hadhowta markaad u gacan gashana farta dhexda ka qaniin doonta ma fahanti geesi badan oo waqtigu ciilo waayuhuna ay waa la helayaa fursad siin baa ma fahanti marka waxaan leeyahay geel iyo hantida hayeegina dumar wax badan qiimeeya ma horta wax badan ha qiimeeyaan waa run oo sidaa uu soo sheegay dad nacas waxaan ku yiri aad gacanta aad u gasho dee aday dhibaato kugu noqonaysa waxba hantii ku tari mayso laga bixiyo heblaayo anigana 130 ma raba oo skorkaasan raba inaan jabiyo hadhowta fartaada ka qanin doonto aday dhibaato kugu noqonaysa laakiin waxa la helayaaba nin wanaagsan oo fariida oo geesigaad sheegtaya oo hadana geel leh hadda waxa jirta noloshu wax dheeli jira ma jiraan ma fahanti waxa jira geesi aan waxba haysan waxa jira nacas waqtigu helay sax ma fahanti marka ninkii geesiga ahaa wuxuu la soo bixi doonaa dhagax sax iyo shub uu kala soo dhex bixi doonaa lacagta nacaskana wuxuu helayaa fursad fudud buu ka heli doonaa gabadh geeya oo qurux badan oo ilaahay hibo siiyana way gacan geli doontaa hadhowtana waad baroon doontaa 130 waa laga marka fiidsmo waxaan balyeynaa dhamaan cid kasta oo familkeedana waxaan leenahay hambalyan leenahay safiidsmana aroos wacan marka insha Allah barnaamijka intaasaan kusoo koobina aad barasanaysaa may weedan tahay hablahana waxaynu leenahay taladii horena mid baaheeda tan dambe waxay leeyahay inanay hadii aad hesho qof aad jeceshahay oo aad ku qanacsan tahay isaguna ku jecel kugu qanacsan nololtu dooni baa ku noolaadee isku aad yani xataa isku age-naatino nolosha wada dhisan kartaan qofka weyn waxa dhici kartaa isfaham weydaan garanaysan oo kasoo horjeeda guurka ragga la guursanayo laakiin waa kasoo horjeeda laakiin taa bedelkeeda may wadaxda kasoo horjeeda taa bedelkeeda waxaan taageersanahay gabdhaha waaweyn iyo wiilasha dhalinyarada guurka dhexmaray ninka dhalinyaradii araga wax badan soo joogay oo doonaya insha Allah inaad khibrad ka qaadatid mu ka aqli badan laakiin wiil yar oo hadda saa iska boodboodaya ma ka aqli badan ninka haduu ka weyn yahay nolosha intaad koogtahay ka badan oo koog yahay ka aqli badan yahay garanaysa laakiin taa bedelkeeda wiilasha dhalinyarada hadii ay helaan gabadh waxoogaa ka da'weyno iyaguna ay jecel yihiin ha guursadeen ma garanaysaa talada waa intaa qof walba noloshiisa isagaa aga wala ninka doonta guurso nina wata doonta guurso inta isaga gabagabeynayna waaniga suluba iyo nastaxayna